السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود واضح أدي هذا ومهسنتهين مقال كان وحربا إن النادي كله وذاقه حل باند إلهان عمر أو شلي ورباهنتا قلن كيدن بكل هذا الشيء مقالة مينيابوليس أي وحى أي شيء إن هنجبادها إيا عقد جوجلينتا لوسو جيدين أيو أيسن وحبكة ترينين أو هوشي ذا أي سي وذا دونتو مدحوين ترامب أي سيدو كله هذا اللذا أو كشيغو أي كهذا الشيء واندله وذاقه يا أرنتا سيقر صورة federaal ah oo shalay gobolka Minnesota amar ku siiyay maamulka madaxweyne Trump in dadka qaxootiga ee sida sharciga ku yimid wadankan aan la xiri karin kuwa hadda xiranna si degdeg ah lagu soo daayo sidoo kale waan idinla wadaagayaa wasiirka cadaaladda Pam Bondi oo iyaduna 16 qof oo 2 qof oo Soomaali ah sheegtay in laga soo xiray magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay qaswadayaal ay ahaayeen Soomaalida gobolka Ohio oo wax musuqmaasuq ah lagu waayay kadib markii shalay shir jaraa'id uu qaabtay xeeraryaha guud ee gobolkaasi oo waliba nin Republican ah arrimahaas ayaan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay xildhibaaneed Ilhaan Cumar oo habeen hore dadka deegaankeeda la hadlaysay kulan dadweyne ama town hall in nin cadaan ah oo cunsuri ah uu ku soo weeraray waxyaabo uraya oo silinga ku jiray hadda markii dambe la ogaaday in uu ahaa balkan qaraar ee apple cider vinegar la yiraahdo isla markaana balkaas hadii cabaar meel yaalo aad ayuu u uraya marka waxaasi ayaa la ogaaday inay yihiin waxyaabaha uu ku buufiyay marka ninkaasi waa la xiray haddana waa xiran yahay weerar heerkiisu midka saddexaad uu yahay ayaa Anthony James Kazmierczak lagu soo eedeeyay oo 55 jir ah marka warbaahinta ayay la hadashay iyadoo wali warbaahinna fara badan ay goobta joogeen waxaana ay sheegtay in cagajugleynta iyo hanjabaadaha dhinaca midigta uga imaanaya ilaa ay hadda ay u shaqeyn waayeen mustaqbalkana aysan u shaqeyn doonin waxaana ay sheegtay maadaama hadda aan idin hortaaganahay inay taasi muujinayso inaanan ka baqaynin hanjabaadaha iyo cagajugleynta dhinacooda ka imaanaya bal iyadoo arrimahaasi ka hadlaysay waxa ay tiri Well, I think my presence here should tell you that the fear and intimidation doesn't work on me. The president's rhetoric, the attacks from him since I've gotten into public office from the right wing has always been really to stop me from being in public service, to intimidate me, to make me want to quit. And my only message is it hasn't worked thus far and it's not going to work in the future. xildhibaaneed Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale la weydiiyay madaxweyne Trump oo markasta oo hadal uu jeedinayo iyada uun ka hadla isla markaana aflagaadeeya sheegana in baaritaan lagu sameynayo waxay tiri arrintan arrin ugu cusub maahan markii aan Congress-ka soo galay ayay tiri anigoo wali aan Congress-ka gelin oo gobolka Minnesota baarlamaankiisa kamid ah ayaa arrintan ay ugu bilaabatay waxay sidoo kale sheegtay markii Congress-ka ay ku beertay 2018 xilligaasi oo Trump uu madaxweyne ahaa in markaasi uu bilaabay waxayna ay sheegtay hanjabaadaha inay tahay xildhibaanka kaliya ee 535 xubnood ee Congress-ka ku jira hanjabaadaha ugu badan loo soo gudbiyo taasina waxay tiri waxa sababa in madaxweynuhu markastaba uu aniga afka igu hayo waxa ay sheegtay sidoo kale 4 sano oo isaga laga guuleysto Biden oo madaxweynaha ka ahaa inay ka nasatay laakiin haddana markii uu soo laabtay hanjabaadihii halkoodii ay ka bilowdeen waxayna sheegtay inay jiraan ilaa iyo 6 askari ciidamo gaarayo ciidamada booliska ee caasimadda inay markasto ay ammaankeeda ay sugayaan waxayna xaqiijisay in arrintaasi aysan xaggeeda waxba u dhimaynin sababtuna ay tahay bulshadeeda Soomaalida oo ay difaacayso in lagu bartilmaameysanayo Trump waxaan ognahay dhaqaalaheeda la baarayaa walaalkeeda ay guursatay waxyaabahaas oo idil ilaa ay hadda inay leeyihiin waxay sheegtay xitaa ninka aniga isoo weeraray waxa uu si gaar ah uga xumaa in madaxweyne Trump hanjabaadiisa ay dad fara badan oo Soomaaliya ah masaafurinayna in aysan jirin wax uu masaafuriyay sidaas darteedna qofka kaliya oo difaacaya ay doonayeen in ay bartilmaameedsadaan marka waxay tiri anaga dastuurkana difaacaya runta inaan idin sheego waa ka xumahay laakiin waxay tiri dastuurka ayaana difaaco dadka Soomaalida intooda badan waa dad muwaadiniin ama si sharciya wadankan ku yimid ayay ula jeedaa haddaba Ilhaan Cumar oo arrimahaasi ka hadlaysayna waxa ay tiri Blame is very interesting, but facts are more important. And what the facts have shown since I've gotten into elected office is that every time the President of the United States has chosen to use hateful rhetoric to talk about me and the community that I represent, my death threats skyrocket.
for 4 years when he was in office. The first 2 years I was state rep, and the last 2 years I was a member of Congress. It was maybe my second or third week when he started attacking me. I became a freshman who nobody should have actually known I existed because I wielded no power, to having the most death threats of any member of Congress. To the point where I had to have 6 Capitol Police officers providing 24-hour detail to me and my family. He left office. Well, he was defeated. And Biden got elected. And for 4 years, it almost plummeted. Then he came back into office and he reassumed his vitriol. And now my death threats are the highest of the members of Congress. The man that attacked me was specifically upset that Trump's order to deport Somalis was not yielding enough deportations of Somalis. So he wanted to come get the person he thought was protecting the Somalis. Well, we are protected by the Constitution. sidoo kale saaxiibkay Liban Hussein Liban Show oo kamid ahaa dadka shalay gelinkii daba markay shirka jaraa'id ay qabanaysay la joogay ayaa su'aal ay siisay marka waxa uu isku dayay English inuu ku weydiiyo markaas waxay ku tiri haye Soomaali ugu ma weydiinaysid miya marka waxa uu weydiiyay habeen hore markuu ninkan uu waxyaabahan kugu shubay waad aado waxaad isku dayday in aad feer ku dhufato marka waxa la dhihi karaa Ilhaan dagaalkana waa ay taqaanaa marka waxay tiri anigu Soomaaliyan ahay wiilal Soomaaliyeedna waa ila dhasheen marka haddii ilaaladeeda aysan iga qaban lahayn gacan ayaan ula tagi lahaa ayay tiri oo waan iska celi lahaa marka Ilhaan oo iyaduna arintaasi ka hadlaysay waliba Soomaali ku hadlaysayna waxay tiri You're not going to ask in Somali. Inta dad oo Soomaali yaqaano way og yihiin dagaalka inaan ku fiicanahay. Way og yihiin haddee gabdhaha Soomaalida oo wiilal walaalo la soo koro inay barteen sidii qof la iskaga dhiciyo. Marka waxaan leeyahay haddii uusan security-gayga ninkaas dhulka ula dhici lahayn gacanteeda way gaari lahayd. Marka nasiib uu leeyahay in ay iga celiyeen. dhinaca kale garsoore federaal ah oo fariista Minnesota ayaa waxa uu shalay maamulka madaxweyne Trump uu amar ku siiyay in si degdeg ah lagu soo daayo dadka qaxootiga ah sida sharciga ah wadanka ku yimid ee I-94 ku haysta oo ciidamada ICE muddooyinkii dambe ay ka qabqabanayeen gobolka Minnesota waxa arintan ay ka dambeysay kadib markii wasaaradda amniga gudaha ay bilowday howlgal ay ugu magacdatay Paris oo ay sheegtay dadka qaxootiga in dib interview looga qaadayo background check lagu sameynayo lana xaqiijinayo dadkan markoodii hore Mareykanka imaanayeen qaxooti ma u qalmeen marka ilaa iyo 100 qaxooti ah wadanka si sharci ah ku yimid ayaa ciidamada ICE ee gobolka Minnesota ka xireen dadkaasi qaarkoodna Texas ayay geeyeen marka garsoorahan federaalka waxa maamulka Trump uu ka hor istaagay in horta qaxooti dambe oo si sharci ah wadankan ku yimid aan la xiri karin isla markaana kuwa Texas la geeyay goobaha ay ICE dadka ay ku xiraan in si degdeg ah lagu soo daayo muddo waliba 5 maalmood gudahooda waxana arintan ay ka dambeysay markii qareeno dadkaas u doodaya ay dacwad ay gudbiyeen waxana jirta dadka qaarkood xitaa in Texas markii la geeyay oo interview laga qaaday kadib Texas lagu dhaxdayo la yiraahdo halkii aad deganeed ayd marka qof gobolkiisii laga waday oo waliba qaxooti ah oo xitaa wali aan sharciga haysan oo I-94 haysto oo gobol uusan aqoonin la geeyo gobolkii aan deganeen oo la yiraahdo gurigaada raadsan halkii uu ku yilay arintaasina sidoo kale waxa weeyay dadka meeshii ay ka qaadeen ICE waa inay keenaan garsoorahan magaciisa waxa la yiraahdaa John Tanham waxana uu ku amray maamulka madaxweyne Trump inay si ku meel gaar ah u joojiyaan xiritaanka dadka qaxootiga ah sida sharciga ah ku yimid wadankan waxana sidoo kale uu sheegay in ay qasab tahay in si degdeg ah lagu soo daayo dadka laga waday gobolka Minnesota oo gobolka Texas la geeyay 5 maalmood gudahood waa in lagu soo fasaxaa wasaaradda amniga gudaha waa tii sheegtay USCIS 5600 qaxooti ah
oo Minnesota la dejiyay ayaan waxaan ku sameynaynaa fatin dib ayaan u baaraynaa interview ayaan ka qaadaynaa waxaan xaqiijinaynaa sheegashadooda qaxootiga inay sax tahay iyo in kale marka waxaa sidoo kale mid ka mid ah dadka ay xireen ICE ay magaciisa la qariyay ayaa waxaa la yiri albaabkiisa ayaa waxa uu soo garaacay qof dhar caadi ah wato waxaanu yiri gaarigayga ayaa ku dhacday markii uu banaanka u soo baxay bal inuu eego gaarigiisa inuu wax ku dhacay in kale dhibaatadii labada gaari gaartay ayaa waxa ku soo baxay ciidamo hubeysan waa ayna xireen kadibna waxa ay geeyeen gobolka Texas ninkaasina waa nin sidoo kalena qaxooti ku yimid marka su'aalo ayaa la weydiiyay lagu xaqiijinayay saxaanshaha inuu qaxooti yahay in kale markaas kadib gobolka Texas ayaa lagu sii dhaxdaayay waxaana la yiraahday gurigaadii aad marka ninkaasi waxa uu sheegay in wadankiisii uu uga soo cararay dhibaatooyin loo geystay laakiin uusan rumaysan karin in Mareykanka gudihiisa ay arrintan ay kula dhacayso xaaskiisa oo waliba qaxooti ah ayaa la sheegay iyaduna inay gurigeedii ka carartay oo dad ehela ay la joogtay iyadoo ka cabsanaysay iyadana dadkii inay ku soo laabtaan oo ay xiraan marka maamulka Trump garsoorahaasi wuxuu yiri ma xiri kartaan dadka sida sharciga ah wadankan ku yimid ee qaxootiga dadka la xiray oo Texas la geeyna 5 maalmood gudahood waa in lagu soo daayo marka arrintaasina waa arrin fiican oo dadka qaxootiga ah u soo hoyatay waxaan ognahay Minnesota musuqmaasuq badan ayaa laga sheegay maadaama magaalada Columbus Ohio ay tahay magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin iyagana waxa la dhahayaa Soomaalida halkaasi waa kuwa cunsuriyiinta kaamirooyin la wareegay oo muddooyinkii dambe tagay haddaba shalay waxaa shir jaraa'id qabtay xeeraryaha guud ee gobolka Ohio waa nin Republican oo la yiraahdo Dave Jost ninkaasi waxa uu xaqiijiyay in dadka sanadkii la soo dhaafay 2025 musuqmaasuqa loo soo xiray inaysan wax Soomaali ah ku jirin 67 qof ayaa sanadkii la soo dhaafay 2025 loo soo xiray qaybta xeeraryaha guud ee gobolka xafiiskiisa u qaabilsan dhinaca dabagalka musuqmaasuqa Medicaid-ka ayay soo xireen hal qof oo Soomaali ah kuma jiro 67daas qof haddaba gabadhan wariyaha oo ABC6 shaqeysay ayaa su'aashaasi weydiisay dad Soomaali ah ma ku jira marka wuxuu yiri website-ka ayay tagtay kadibna waxay soo ogaatay 67daas qof 9 kamid ah in Columbus area ay ka yimaadeen xitaa dadka magaca muslimiinta wato waa ay ku yar yihiin ay tiri hal qof oo Soomaali ahna kuma jiro dadkaasi 67 qof oo musuqmaasuqa lagu soo eedeeyay in sanadkii la soo dhaafay gobolka Ohio oo dhan haddaba iyadoo arrintaasi bal ka hadlaysa gabadhan wariyaha waxay tiri markii shalay ay ka qayb gashay shirka jaraa'id ee xeeraryaha guud ee gobolka Ohio oo waliba nin Republican uu qabtay. However, I did ask the Attorney General specifically about more concerns on social media surrounding Medicaid and Somali healthcare aides and providers. Yost would not tell me who his Medicaid fraud unit had indicted or charged this past year. Instead, he told me to check out his website. So I did. And here is what I found. In 2025, the Ohio Attorney General's Medicaid Fraud Control Unit charged or saw the convictions of 67 fraudsters or suspected fraudsters who took more than $8.5 million combined. Now, 9 of last year's 67 suspects that we found came from the Columbus area. However, few had Muslim names, and we could not confirm that any came from the Somali community. ugu dambeyntii wasiirka cadaaladda Pam Bondi ayaa shalay waxa ay daabacday magacyada iyo sawirada 16 qof oo 2 qof oo Soomaali ay ku jiraan oo gobolka Minnesota laga soo qabtay dadkaasi laba wiil Soomaali oo Cabdiqaadir Nuur u qoran yahay gabadha Nasra Axmed ayaa ku jira dadka la soo xiray gabadha Nasra waa muwaadin Mareykan toddobaad ka hor ayaa la xiray waana la soo daayay hadda dib ayaa loo xiray waxa wasiirka cadaaladda Pam Bondi ay leedahay dadkan waa qaswadayaal oo ciidamada ICE intii howlgalka ay wadeen dadka dhibaatada ku hayay oo hawshooda inay qabsadaan ka hor istaagay ayay kamid yihiin gabadha Nasro iyo aabaheed iyo qaar kamid ah xubnaha laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa shir jaraa'id toddobaadkii la soo dhaafay qabtay oo ka hadlayay in gabar muwaadin Mareykan ay ciidamada ICE intii iska xireen ay haysteen muddo hadana ay soo daayeen marka wasiirka cadaaladda waxay leedahay dadkan waa qaswadayaal dib ayaan u soo xirnay kadib markii baaritaan aan ku sameynay maxkamad ayaana la saari doona marka waa 16 qof oo 2 qof oo Soomaali ahna ay ku jiraan dhinaca kale Epstein Files maalmahan waa la hilmaamay laakiin hadda wasaaradda cadaaladda oo 19 bishii December ee sanadkii hore la rabay
in ay soo fasaxdo Epstein files wali waxay leeyihiin ilaa iyo 2 milyan oo file ayaan darsaynaa waqtiga ku haboon ayaan soo bandhigaynaa hadda waxa soo baxday haweeneyda Ghislaine Maxwell oo ninkii Jeffrey Epstein ahaa dumarka intay u shukaamayso u geyn jirtay in ay sheegtay ilaa iyo 29 nin oo dad caana iyo maalqabeena ah in heshiis ay la galeen wasaaradda cadaaladda si magacooda aan loo sheegin 29 kaasi qof oo 25 kamid ay rag yihiin ilaa iyo hadda lama sheegin magacyadooda oo waa la qariyay waxaana leeyahay wasaaradda cadaaladda ay heshiis la galeen si magacyadooda loo qariyo maadaama ninkaasi ay xiriir la lahaayeen dadkaasi yaa kamida doodooda hadda ayay bilaabanaysaa magacyadooda hala shaaciyo intaasi waa la ogaan doonaa laakiin wasaaradda cadaaladda ilaa iyo hadda weli faylkii Epstein files hadda arrimahan Minnesota iyo Venezuela iyo arrimo kale ayaa lagu mashquulay marka weli waxa la leeyahay wasaaradda cadaaladda waxay leeyihiin 2 milyan oo file ka badan ayaan gacanta ku haynaa oo darsaynaa waan kala hufaynaa marka aan fursadeeda noqotana waan soo bandhigi doonaa marka waan arki doonaa arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordhay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo